السلام عليكم كلن wanaagsan daawadayaal dhamaantiin halka aad naga daawanaysaan waa SMN TV kusoo dhawaada wararkii Soomaaliya iyo caalamka fadlan hadad nagu cusub tahay nagu soo biir ha naga hilmaamin subscribe-ta like-ta share-ka wixii comment-ina falaqayn noogu reeb haddaynu ku bilaawno wararkeena waxa kamid ah macluumaad aynu helayno oo la doonayay in lagu kharijiyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa la sheegay inuu ka badbaaday dil qorsheysan oo loogu talagalay in lagu dilo madaxweynaha dalka Ruushka madaxtooyada dalka Ruushka oo soo bandhigtay sawirro cadeynayo arinkaasi la rabay in lagu dilo ama falkaasi madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin hay-adda militariga iyo sirdoonka dalka Ruushka oo sheegay inay soo rideen laba diyaarad oo drones ah diyaaradaha droneska lagu weeraray dalka Ruushka aqalka kriminalka madaxtooyada ku yaala caasimada Moscow ee dalka Ruushka waxaana lagu eedeeyay hay-adda sirdoon ee dalka Ukraine inay lug ku lahayd falkii la doonayay in lagu dilo ama lagu kharijiyo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin madaxtooyada dalka Ruushka waxay kaloo ay baahisay muuqaalo cadeynaya inta aysan geysan diyaaradihii droneska qaraxa in laga hortagay oo lagu qarxiyay hawada waxaana ka hortagay laamaha amniga iyo sirdoonka dalka Ruushka waxay kaloo cadeeyeen markuu dhacayay falkaasi inuusan ku sugnayn madaxtooyada dalka Ruushka aqalka kriminalka madaxweynaha dalka Ruushka uuna joogay waxaana la sheegay xilligaasi inuu ku sugnaa gobol lagu magacaabo Novogradiov ee u dhow magaalada Moscow caasimada dalka Ruushka falkaasi kadib markuu dhacay ayaa dowladda dalka Ruushka madaxweynaheeda iyo saraakiisheedaba waxay go'aan degdeg ku qaateen in arinkaasi laga jawaabo arinkaasi ka bacdi markuu dhacay ayaa waxa laga maqlayay dalka Ukraine ee caasimada Kiev qaraxyo aad u waaweyn oo xoogan oo saameeyay goobo badan nidaamka difaaca hawada dalka Ukraine ayaa waxa la geliyay heegan buuxa haddaynu eegno wararka Soomaaliyana waxa kamid ah dowladda Soomaaliya oo dib u riday mar kale qodobkii oo Soomaaliya la doonayay in lagaga saaro qodobka ama cutubka 7 ee qaramada midoobay magacaawista haweeneyda oo dharbaxsho kulul ku noqotay dowladnimada dalka Soomaaliya iyo halbeegii ahaa dowladnimada Soomaalida in lagu soo celiyo gacmahooda maxay ka dhigan tahay wakiilka arrimaha siyaasadda dalka Soomaaliya ee u magacaabaan qaramada midoobay xageena kaga jiraan dawliga caadiga ah waxa kaloo kamid ah wararka Soomaaliya canshuurtii dalka Soomaaliya oo kor la geeyay shicibka magaalada Muqdisho caasimada oo ka buujiyay cara aad u baahsan arinkaasi canshuurta la kordhiyay haddaynu eegno gobolka Sool iyo xaaladiisa gobolka Sool ayaa waxa la sheegayaa burburinta uu u geystay groupka Muuse Biixi inay dowladda dalka Ingiriiska lug weyn ku leedahay warbaahinta Ingiriiska oo arinkaasi soo faagtay Muuse Biixina la qaadatay shir dhinaca kale haddaynu eegno jamaahiirta reer SCC ayaa diyaar garow adag ugu sii jira siday uga hortagi lahaayeen falalka uga imaanaya kooxda Muuse Biixi